waxaa maanta si weyn mar labaad degmada Balanballe oo ka tirsan gobolka Galgaduud looga soo dhaweeyay xildhibaan Cabdi Saacid Jaamac oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka gobolka Soomaaliya inta uusan xildhibaanku gelin gudaha magaalada Balanballe ayaa waxaa looga hortagay meel dhexe iyadoo markaa kadibna lagu soo galbiyay gawaari aad u qurxoon isla markaana fara badan kumanaan dadweynaha oo lulayay fiyooriyaal caleemo qoyan iyo waliba ubaxyo ayaa u soo dhaweeyay xildhibaanka si habsami farxad iyo dawladnimo ay ku dheehan tahay iyadoo haweenkuna aysan afkaba isku darin masxarad geeraaro baraamburo iyo waliba soo dhaweyn aad iyo aad u qiimo badan xildhibaanka oo ay socdaalkiisa ku weheliyeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka culimadiinka ahlu sunna wal jamaa ayaa soo dhaweyn kadib waxa ay la hadleen kumanaan dadweyne ah oo reer Balanballe oo ku sugnaa goobtii maanta lagu soo dhaweeyay ugu horeyntiina xildhibaan Cabdi oo halkaas khudbad ka soo jeediyay ayaa u mahadceliyay dadweynihii reer Balanballe sida kalsoonida ay ku dheehan tahay oo ay u soo dhaweeyeen xildhibaanka sidoo kalena ka codsaday ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka gobolka Soomaaliya Cabdiwali Maxamed Cali in uu yimaado deegaanada Galgaduud oo uu sheegay inay ka jirto xasilooni aad u ballaaran oo fariin aan u dirayo dowladda gobolka xukuumadda uu hogaaminayo Prime Minister Mr. Cabdiwali oo runtii aan isleeyahay message-kaasna ma aha mid intaan qaadno aan la tagaynaa waxa weeye sida aan horay u sheegayba fariinta waan gudbinaynaa waan idinla joogaynaa idinkama tagaynaa diilahayadno ilaa aan jawaab ku helno ama aan ku weyno midda kale imaatinkayga hadda maanta aan ma noqon doono kii koobaad waxaan imaan doonaa marar kale oo badan oo isla mataqaanaa aan fogeyn oo xilliyo dhow ah waxaan rajeynayaa in deegaanka dhan aan joogo marka intaas waxay ahayd mahadcelintii iyo soo dhaweyntii ay soo dhaweyseen insha Allah ta'ala in badan baan taas kaga mahadcelinayaa hadalkayga waxaan rabaa inaan ku bilaabo marka koobaad waxaan baaq u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa nabadgelyo marka kadib ayaa xildhibaanka iyo wafdigiisu waxay u ambabaxeen degmada Bangeele oo kamid ah meelaha uu booqanayo markaana ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana sidoo kale looga soo dhaweeyay degmada Bangeele halkaas oo kulamo gooni uu la yeeshay guurtida odayaasha dhaqanka haweenka iyo waliba maamulka degmadaasi inta uu ku sugnaa xildhibaanku degmada Bangeele waxa uu booqday goobaha madaafiicda ee ahlu sunna wal jamaa oo uu sheegay in ay dawladdu dayactir ku sameyn doonto wixii ciladaysan ama markaas dayacan oo fariintan uu gaarsiin doono waxaana sidoo kale uu booqasho ku tagay xariyaha ciidamada qalabka sida culimadiinka ahlu sunna wal jamaa ee degmada Bangeele oo markaas uu soo jeediyay khudbado kala gedsan soo kula dardaarmay in markaas ciidamadu ay ka shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida oo aysan ka caajisin waxaana sidoo kale uu sheegay in wixii karaankooda ama uu awoodo uusan ka hagranayn isla markaana dawladda u gudbin doono fariinta iyo muuqaalka sawirkani uu kala kulmo deegaanada uu tagayo markaana ay ku sugan yihiin ciidamada ahlu sunna wal jamaa iyagu markasta u taagan in ay bulshada u shaqeeyaan gaaro aan مسؤول وحيدنا وواح متقنا إن شاء الله تعالى وسجى إيمان دونا فرينتي الدنيا كمدة إيو أضياش إيو هويين كي كل وقت كي يحدي لها الماء أمني النصرة صارت جرح جاهنا صارت جريئة هذه أدبر إنكرامها العليا guud ahaan shacabka ku nool gobolada dhexe ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa u hamuuman oo ballaaran oo qaba in ay helaan dawlad qaran oo mar uun ka iftiinta gudaha dalka Soomaaliya waxaana taasi sabab u ah sida markasta ay ugu guntan yihiin isla markaana ugu taagan yihiin soo dhaweynta mas'uuliyiinta ka socota dawladda federaalka gobolka Soomaaliya oo wayahan dambe soo gaaray gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Caabudo oo ah meel amnigeeda aad u sareeyo isla markaana la higsan karo oo ay ka jirto xasilooni waa si mas'uulka kale ee gobolada ayaa waxa uu ku saaray in markaasi ay dadka raacada ama kuwa gobolada ay dalayaan in markasta ay leeyihiin ka socota dowladda federaalka gobolka Soomaaliya ma xasan diin isla gobolada Soomaaliya Caabudo